الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى وحو قرآنك كريم ككليهي وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سيداسان آياتها أكلا دقنا سيداس وكلام وحو عدينا أكلا دقنا si ay u cadaato dadka mujrimiinta ajidkooda u cadaa. ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aanka uu soo dejiyey iyo rasuulka uu soo diray maqaasida loo soo diray waxaa ka mid ah in jidku cadaado, tawxiidka iyo xaqa dariiqiisu inuu cadaado, dadkiisana la garto, baatilka kufriga nifaaqa inuu cadaado, dadkiisana la garto. kadibna markii labada jid kala cadaadaan dadka khiyaar la siiyo. jidku waa ku cadaaday soo maaha, faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. haddaad doontana jidkaa qaad, haddaad rabtana kaa qaad. jidkaad qaadana meeshuu ku dhammaanaya waad garanaysaa. jidadku inay isku khaldamaan oo xaq iyo baatilkii la kala garan waayo, oo dadkii ahlulxaq iyo ahlulbaatil isku darmadaan, oo munaafiqiintii iyo mu'miniintii la kala sooci kari waayo, arrintaasi halisteeday leedahay. inuu ruuxa mu'minka ah ee ilaahay iyo aakhiro rumaysan, iimaankiisa iyo diintiisana daacadka ah, inuusan kadsoomin oon la khaldin waxaa keenaysa inuu jidku u cadaado. sida uu khayrka u garanayana oo khayrka u raadinayana waa inuu raadiyo cadaysto baatilka, xumaanta, kufriga, munaafiq, nifaaqa iyo dadkiisa inuu cadaysto. say u yaallaan, say u egyihiin, sifaadkoodu muxuu yahay, maxaa lagu yaqaanaa, tilmaantay leeyihiin. lianna haddaad garan weydo adoo niyadsan oo iska niyad fiican baad ku dhici ood khaladka geli oy ku duubsan ood jidkooda mari ood gaaloobi ood munaafiq noqon. halis waay. bukhaari iyo muslim waxay soo saareen min xadiidi xudayfata bn alyamaan saaxibu siri rasuuli llahi sal alla alay wasalam. xudayfa wuxuu yidhi dadku waxay weydiin jireen nebiga sal alla alay wasalam, khayrkay warsan jireen, aniguusan sharkaan warsan jiray. sharkaan weydiin jiray si uusan sharku iigu dhicin oon isaga ilaaliyo yaan rasuulka u weydiin jiray sal alla alay wasalam. su-aaluhu rasuulka weydiiyey waxaa ka mid ah, waxaan idhi bu rasuulka ilaahay ow, jaahiliyo iyo shar iyo gaalnimo iyo xumaan baan ku sugnaan jirnay, ilaahayna khayrkanuu noo keenay, diintanuu noo keenay. khayrkan aan haysanno maanta shar miyaa ka dambayn doona? nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam, haa, shar baa ka dambayn doona, waxbaa isbedeli doona. waxaan idhi buu yidhi sharkaasi imaan doona, khayr miyaa isagana ka dambayn doona? nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam, haa, khayr baa ka dambayn doona isagana, laakiin khayrkaasi waxaa ku jira qiiq. yacni khayr saafi a ma ah, khayr badhaxla ma ah, waxbaa ku qasan, shar baa ku dhex jira. waxaan idhi buuri rasuulka ilaahayow, qiiqaa ku dhex jira muxuu yahay khayrkaas dambe? wuxuu nebigu uhi sal alla alay wasalam, waa dad jidkaygii jid aan ahayn haya oo marna waafaqaya diinta marna khilaafaya. tacrifu minhum wa tunkir. mar wax wanaagsan baad ku arki, marna jid xun bay qaadayaan. waxaan idhi buuhi khayrkaasi aan saafida ahayn shar ma ka dambeeya? haa buu nebigu uhi sal alla alay wasalam. oo muxuu yahay? waa qolyo ducaad oo baaqaya oo dadka u yeedhaya oo ugu baaqayo dadka ugu yeedhaya jahannamo iriddeeday taagan yihiin. dadkay leeyihiin soo leexda warkaalaya. ciddii warkooda yeesho u soo leexatana naarta jahannamay ku tuurayaan. sabab bay ugu noqonayaan waaye. waxaan idhi buri rasuulka ilaahay, bal kuwaa noo sifee, bal noo tilmaan, bal noo cadee. wuxuu yidhi rasuulku uhi sal alla alay wasalam, jidhkeennoo kaley leeyihiin, luuqadeennana way ku hadlayaan. يعني ما دad qariiba ma dad banaanka ka yimidna ma
وأبدد بالشدة للضلع ولا الديجان ولا اللقد ولا أبتر ولا مدب كواسوا هذا ما حيهين دعاة على أبواب جهنم ضدك دنك جهنم وكحينا يعني نار تصوب النقونية طريقي حقيقة اللي حدية waxaan idhi buu rasuulka ilaahayow xaaladaasi markay gaadho hadaan haleelo igu timaadaba maxaan sameeyaa bal ii sheeg wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam muslimiinta wada jirkooda inta muslimiinta wada jirta hogaankana leh kuwa laazim oo kuwa la soco waxaan idhi rasuulka ilaahay haduusan hogaanna jirin muslimiin wada socotana aynan jirin maxaan sameeyaa kooxa isdilaya oo isbaabiinaya oo kursi isku laynaya oo diinta inxiraafay waxa uu haday soo hadaan maxaan sameeyaa muslimiin isku duuban oo madax laho wada socotoon la socdana aan waayo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam kooxaha ma urjeeda kulli kaleexo hatta haday kalifto adoo geed salkiisa qaniinsan oo halka ku ururay inay geeridu ku timaado hatta haday kalifto halka qalbu nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam kacar diintaadii la faagal u fiirsada bal su'aalaha say isu dabayaalaan fiiri muxuu raadinayaa Xudayfa radiyallahu ta'ala anhu arda wuxuu raadinayaa sharka iimaan kara iyo dadkiisu tilmaamahay leeyihiin si aan isaga jiro kalimatu tawxiid baaba Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu ka yeelay laba tiir buu u yeelo tiirna sharka iyo xumaantiisa iyo dadkiisa diidaysa tiirna khayrka iyo wanaagga iyo tawxiidka ilaahay u sugaysa kalaabada waa inaad wax garanayso waa in wax ku kala cad yihiin waa in wax saaka qasmin haday wax saaka qasma waa halis oo wixii ba kala garan weydo yaad la jirtaa xageed ku tirsan tahay yaad la xisbi tahay yaad u hiilin yaa kula jira yaad la mabda tahay oo sida dabaysha oo kale to kolba dhinac lagu jiido oo wareerto qolyahaasi dariiqooda la cadeeyay uguna halisan dadka ahlul baatilka waxa weeyaan munaafiqiinta waa dad qalbigana gaala ka uurka gaalay ka yihiin laakiin korka iyo muuqaalka muslimiin bay ka yihiin way kugu dhex jiraan safkay ku jiraan way dhex degan yihiin masaajidii bay kugu jiraan goobihii cibaadada kula joogaan luqadaadii bay ku hadlayaan dadkaagay ka tirsan yihiin maxaad ku garan waay saa ay tahay haddana cadawga gaalka gaalnimada cadaystay ee iska cad ayaga ka khatarsan Allah wuxuu yiri tabaaraka wa ta'ala humul aduwwu fahdharhum cadaw haduu jiro waa ayaga ee iska jirba nabiga la yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi عدو waxa ugu khatarsan midka kugu dhex jira ee aadan garanaynin ka uu ka soocayo waabad garanba in gaalnimadiisuna waa cadahay inuu cadow ku yahayna waa cadahay wuxuu kula maagan yahayna waa cadahay laakiin kan kugu dhex jiray habeen iyo maalin badabaraya ee ka shaqeynaya laqdabadaada ka shaqeynaya dibiyadaada iyo sidoo ku lugoyn laha saad ku garanay waa inaad marka fahanto waa saad ku garan waa quraanka kariimka caday munaafiqiintu marka waa sinfiga ugu khatarsan asnaafta saddex way dadku gaalnimadiisu cadahay munaafiq labeeb iyo mu'min iimaankiisu cadiya qalbigana mu'minka daahirkana mu'minka saddexda sinfi mid waa mu'min laakiin labadan kale waxa ugu khatarsan munaafiqa sidaas daraadeed waxa kanata khatartiisa سورة البقرة رب تبارك وتعالى مركو كهل لهي بلوغيدا صفين يصدح ذا قلبة تلمامي مؤمنين تا إلهي وحو كسفيي أفر آيادات أو سورة البقرة أهرية قال هذا قال لماذا عديستين وحو كسفيي لبا آيادات كلية منافقين تمركي اللي يمد وحو كفافاهي صدح يطبن آيادات ولا يستبر لغي ولو في رصدا مؤمنين توا أفر آيادات قال هذا نوا لبا آيادات منافقين تنوا صدح يطبن آيادات maxaa saddex iyo toban aayad la isugu daba dhigay waa halista ay leeyihiin sidaas daraadeed baa wuxuu leeyahay al-Haafid ibn Kathir alayhi rahmatullah
الله تبارك وتعالى منافقين الصفات كودا وحو أبراروجينيا سي أيسان مؤمنين تؤغو كتسومين موقال كودا ظاهر كأمر كودا سين أغو كتسومين وهدي كتسومان محا دعيا فساد وين با إيمانيا وحا إيمانيا إن لغا تحدري وايو وحا إيمانيا إن لغو ضيدو وحا إيمانيا إن قدكي أي قدين لغو دعو دبينك إن لو قالو إن أي خطرتو دي أي أمدو كل عضو حوليه هاي وحيالها شريعة كدك تكو هو وين وحا كمدها ددك أهل الإجرام كإيه دنبيلياش إيه خربان قلوا عصن كوا إن خير لهم ملايو منافق دين تاديب الدمينية وعقيدة دا ويررية وأخلاق دا كسعودة وآخرة دا كسعودة وأدون كاغا كسعودة وشرم ويأمنا كل الدونين مركات رميسة إنو وناك سيئة وارير كيجي وقبيل كيجا ووضع دلاني المادير بان نهاي وأغاس كيجي والسلطان كيجي ومدح ذيدي ووزير كيجي هوست سوق شط يا لأن أبي سكر صدي ومحاب لا يقول على هوست سوق شط أدون عدو كويه سو هل اسمه سيداس دراد يتبع قرآن كريم كأه وحؤاد إلهي وجه الله يا كوحدة يدا يهلست إليه سورة القرآن كم إذا كل جد وحبلوه مجعوا منافقين بالله سورة المنافقون سورة يقدم بس القرآن كسودك سورة التوبة واي مجعية هذا وحى كم إذا الفاضحة لها الفاضحة فدحيسو سعيد بن الزبير أرضي عبد الله بن عباس وحوليه كما في صحيح البخاري ومسلم وحوليه هي عبد الله بن عباس وحنكود عبد الله يو سورة التوبة ورقصوا سورة التوبة توبة ما هي فاضحة وحوليه مين كزول إن يسود جيسو ومنهم وحكم إذا منافقين إن يودوا كمين الزولين بوري إلى أن السن الله بوري ملاها إذن كابل يدين شيء دونا إلى عيد والباء استراد ما لا هذا يكون سعوتها مركز بعض الله قلت المامي دونا سومارد لماذا مرحلة أي سودة سورة داسي وسورة دي وقدم بي القرآن كسودة نبي قل سنة كي سقالات مركو دقال كتبوك كسور نقضي حج كان أودي أرقروبي صلوات ربي والسلام عليه بسودة كتي مرحلة أدقو حرج بسودة جيسا ومرحلة خطر والله كلام مير مايو وإسلام كي حوغي استقالات المنافقين تيدوت كودين هوس وصعدان ومركي اسكو دايان نبيغو مركو تبوك كسو لابتو جيدكا كسو جيري إني الدلان والشرقولان منافقينتو كما في صحيح مسلم حالة إيضا أبا مركا لتلماميها تلمانتا إلهي وقرآنك كراجي أو صفات كوداء وحالو قلت لك لددك مؤمنين تا إلى قيامدو كإيمانيسا إني كو أقون صدان صفات كوداء تلمامها إني ميزان كدكتان وأيضاً على صفات كي سورة أي شيء هبل باله كو هبل باله سياسي هبل باله فيلسوف هبل باله أقوياء هبل باله دكتور هبل باله وداد هبل باله صفات كي باكونا ميزان وإلهي إن السيد تبارك وتعالى سينا أخلط منه أرنتها سمرك وأرن لغا مارمانا هدي أي أرنتها سينا قصنتم محار دعيا سيد إلهي تبارك وتعالى كتل مامي أهل الحق أهل الباطل كهذي سجاك قسمان وحا إيماني سينا مرتدك أهل الباطل كراعدو أو تكوري يرتود يجا أوهي اللي سوء قرب سي سوء كم النقط أقول درو جهلي يا كتسومد إن تكو كتسونت دتكي أهل الحق أهائي الدين تينا إن لدق على أنتو ننعك النقطو جهلي أقول تري النيود وناك والو خلطي لأن وحي بأساك قسمي وات إلهي القرآن الكريم كوشك فتنة وين مركز والذين كفروا بعضهم أولياء بعض قالوا يجا إسحاق يجا إسوهي ليه يجا إسشري يجا قرب إساسية الله وحده تبارك وتعالى هداد يلي ويدان وقالنا قال هذا قرب سيس مؤمنين تنجا إس قرب سي هداد يلي ويدان فتنة إيه فساد وين بارولك كرعية علماء وحين الفساد كرعية وحي اسكو قسمه كدب نددك أهل الحق أهل الباطل كأي لصفتان وحي يودن إسهاد نحضر مدان أرن كاسا فساد وين فساد كاسي مركا وحوي يصير لو صحو أي إلهي تبارك وتعالى قرآن الكريم كقولها صفات كودا آدو قفافاهي
maanta marka waxa way xilligaas oo waxyigu dagayo oo quraanku dagayo oo la sifaynayo oo la tilmaamayo oo la cabsiinayo oo la leeyahay haddaad joojin weydaan waa la idin leynaya kama fi suurati al-ahzab nabiga alla idinku sallidi haddaad joogi weydaan oo inta ilaahay u digayo ayaa haddana la kari lahaa dilkii nabiga isku dayeen sallallahu alayhi wasallam dagaalkii Uhud bay isku dayeen muuminiinta ku fashiliyaan Abdullah ibn Ubay ibn Salul iyo kooxdiisii muuminiintii bay damceen inay kala jabiyaan oo muhaajiriin iyo ansaar isugu dhuftaan inta ay mu'amaraad iyo shirqoollo iyo khatar galahayaan oo laga warramay ma xadayn kartid allahna waxyigu ku dul wada ogow wakwa baa leeyahay maanta maxaa u malaynaysaa marka maanta waxyigii go'ay gaalana awood yeelatay munaafiqiintii xaggee joogaan in badan oo go'aamada inoo gaadha oo sunnacul qaraarka ah waa munaafiqiin in badan oo hoggaanka haya waa munaafiqiin in badan oo siyaasiyiin ah waa munaafiqiin baa ku jira in badan oo aqoon-yahan ah waa munaafiqiin mulxidiin baa ku jira aan diin lahayn in badan oo ugaasiye iyo salaadiin ah waa munaafiqiin in badan oo dumarka ka mid ah waa munaafiqiin in badan oo wadaadada ka mid ah waa munaafiqiin bal nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ummadayda munaafiqiinteedu waxay ku badan yihiin kuwa quraanka yaqaan aktharu munaafiqi ummati qurra'uha meel walbay ku jiraan marka haddaad marka si dhagalaana isaga socoto la iska kaawato oo aad tidhaahdo may waa reerkanagii waa ugaaskanagii waa suldaankanagii waa siyaasiganagii waa in adeerkay waa walaalkay oo mabda'agu ka noqdo xageed iska soo qabanaysaa marka لا بد وحوي وإن طريق كوعد يهي حكيتها يا تهي حكيت مريسا شتكيد هيسا يا كو خلافسا يا تسكتشري يا دجري لا بد هديك لا توحوي قد حنبات كدحي ضبي حنبات كدحي ميل هليسات قلي أدو نية سنو إسلوان أكسن أو إسلقوا من آيات آخرات هذه أدون كاقب السيقي سايو النار قلي إلهي عددي سنو كوكو دعيسا وملح لغا توري سيداس دراديد waa laga maarmaan ilaahi bilaash umadul istaagino aayada iyo suurado aad u fara badan qolada umadaba dhiganin waxa loo daba dhigtay waxa weeye warwa kuwaas iska jira in lagu yiraahdo marka sifaadkoodana garo sifaadkooda markaad garatana iska jiro talada rabbiga iyo talada rasuulkaaga sallallahu alayhi wasallam qaado biidnillaahi tabaaraka wa taala halkaas waxaynu ka bilaabaynaa biidnillaahi tabaaraka wa taala silsilad ku saabsan khutbooyina oo soo socda biidnillaahi taala oo aan kaga hadlayno quraanku muxuu munaafiqiinta ka sheegay allah muxuu ka yiri munaafiqiinta seebuu u tilmaamay maxaa lagu gartaa maxay kaga duwan yihiin mu'miniinta ميزانك آد كسوعي كرتم حويهاي سي آن إساقا جرنو إنان أكتسومين صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأقم الصلاة